بسم الله الرحمن الرحيم. محمد aad baad mahadsantahay. Axmed aad baad ugu mahadsantahay sida kooban buugga ballaaran mucda weyn iyo macnaha leh aad u soo koobtay. Horta runtii waxaa muhiim ah inaan fahamno hal qodob. Carabta waxay yiraahdaan laa yakhlu kitaabun min faa'ida. Buug kastoo la akhriyaa faa'iido leeyahay. Gaar ahaan anigu waxaan jeclahay buugaagta dadka mujarrabka ay qoreen wax try gareeyay tijaabiyay. marka carabta waxay yiraahdaan laa tasal dabiib wasal mujarrab. qofka wax tijaabiyay baa wax la weydiiyay, qofka dhakhtarka lama weydiiyo. marka qofkii wax soo bartay iyo qofkii faraha la galay shaygan waday waxay qoreen aad bay kala duwanaanayaan. soo buugga professor qoray jaamacad wax ka dhiga oo aan weligii business tijaabin iyo ninkan oo kale oo businesska zero inta ka soo bilaabay meel gaarsiiyay buuggu qoray horta macna kala duwan ayay yeelanayaan. mid kalena waan baraarujinayaa oo buugaagta hadiga hore galbeedka qoraan waxaa muhiim ah kala principle baynu nahay. iyaga hadiga hore waxay ka fikirayaan adduunyo cabdu diinaar, inaguna adduunyo aakhir waan ka fikiraynaa. marka qofku markuu ganacsi bilaabayo waxaa muhiim ah marka hore inuu isagoo doonaya adduunyo inuu kasbado haddana inuu aakhiradiisana inuu ku wanaajisto. niyadda hadduu la yimaado sida salaada uu tukanayo kale uu ajar uga helayo ayuu ganacsigii uu ka ganacsanayana ajar uga helaya. marka runtii fikradahan oo kale markaas ay anfacayaan qofkii. haddii laakiin fikradahan tusaale ahaan liberalka kuwan tusaale ahaan oo kale baxtiga adduunyada ah oo intuu qofku qaato dabadeetana uu sidooda u apply gareeyo ama u dabaqo mararka qaarkood waxa laga yaabaa inuu jarka sii dhaco. ma aragtaa soo hadiga goor waxaan idhahdaa ha la iska qaboojiyo oo hadiga goor afkaarta maaragtay buugaagta reer galbeedku in afkaarta diiniga iyo dhaqanka diineed iyo maaragtay culture-keenna in lagu daro aad bay muhiim u tahay. runtii afkaar aad u qurux badan oo waafiya ayuu soo jeedinayaa. markaad akhridana waxaad soconaysaa fitrada saliimka ah qofka caadiga ee iska hadlaya ee aan iska toosanin markuu hadlayo waxaad soconaysaa malaha maaragtay diintii buu ka soo qaatay aad marar badan oranaysaa. waayo fikirka wanaagsan iyo inta badan diintu isma diidaan. fikirka toosan ee aan la qasqasin ama aan la khaldinin fitrada saliimka ah inta badan diinta kama hor timaado. waayo diinta asala ilaahay baa biniaadamka abuuray ku program gareeyey inay halka toosan iyo tooska maraan. laakiin sida nabigu inoo sheegay dadka duwa dadka alayhi salaatu wasalaam. runtii ganacsiga Soomaalida sidoo u bilaabmo runtii waxaanu geyga Soomaalida oo dhan ganacsiyo kale kuwa yar yar iyo kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn intaba waan la talinay tababaraan siinay. runtii ganacsigeenu waa dad Soomaalidu waa dad hal abuur leh, waa dad dhiiran, waa dad ku dhac leh. laakiin hal cilad baa haysato waxay nagu badan isku dayashada. qofku waxa laga yaabaa inaanu kaba fikirinba businesska waxa ugu horeeya inaad opportunity fursad inaad hesho. fursaddii waa inay noqotaa fursad adiga kuu gaara oo ama cusub ama wax hore loo samayn jiray si ka duwan siday dadku u samayn jireen inaad la timaado. laakiin haddii Axmed maqaaxi furto oo aan arkay inuu ku yar liibay aanu shaarac xidhay oo beritaana aan ka kala furo way isla jajabaysaa un. waana sida inuu badannahay oo sector kasta oo la galay waa la buux dhaafiyaa dabeedna uu fatahaa. ma aragtaa soo hadiga goor waxaan kula talinayaa dadka ganacsiga soo gelaya gaar ahaan dhalinyarada inay la yimaadaan fikrada hal abuur leh, fikrada cusub. fikraddii markaad hesho qofkii haddana wuxuu u baahan yahay maalgelin. adimka ninkan oo kale markuu hadlayo problemka haysta iyo problemka qofka Soomaaliga ah ee ganacsi abuuraya haysta aad bay kala duwan yihiin. ninkan wuxuu haystaa access to finance, maaliyad buu heli karaa, cid maalgelisuu heli karaa fikradiisii. maanta haddaad fikrad kasta oo qurux badan la timaado aad bay u adag tahay. xafiiskayga waxa ugu yimaada dad runtii dhalinyaro ah very smart ah fikradahay hayaan hadday dunida kala joogi lahaayeen malaayiin lagu infasgareyn lahaa. laakiin waxay la rafaadayaan ma aragtaa inay helaan cid maalgelisa. deetana markuu qofku ka hari waayo aakhirka wuu samaynaya. soo haddii uu fanna u helo oo lacagna u helo
oo cid ama kaga dhaadhiciyo ama family ama friends ama cid maaragtay uun ku saabsan waxaa soo haray waxay noqonaysaa inuu qofku wixii abuuro marka marketingku waxay dhahdaan businessku laba function buu leeyahay marketing innovation and marketing hal abuur iyo suuq geyn hal abuurku marka waxa weeyaan inaad la timaado fikrad cusub ama wax hore loo samayn jiray haddaan TV uun idhahdo waan furanayaa saab TV oo kale dee 100 TV hore jiray so maxaan kaga duwanahay TV-yadii hore haddaan markaa dadka macno u sameeyo inaan wax ka duwan keenayo waxay ka dhigan tahay waa la soo dhaweynaya suuq uu soo dhaweyn karaa number 2 waa marketing marka halkii imka designerka uu ka Axmed ka hadlayo kale waxyaabaha dadkeenu ay aad ugu liitaan waxa kamid ah marketing tusaale ahaan oo kale branding sumada geela reer miyigeenu way yaqaaneen branding so reer waliba markaad geela aragto waa taqaanaa reer hebelka geela leh inaga shirkadii waxa laga yaabaa in 100 kalar oo kala duwan 100 shay oo kala duwan 100 arrimood oo kala duwan in maalinba si laga dhigo deetana maxaa soo baxaya qofku ma fahmayo yani macnaha ay waxaan leedahay waxa laga yaabaa inuu ku qaato inaad meel kala duwan tahay ma aragtaa marka aad bay muhiim u tahay qofku inuu aad maaragtay uga fikiro magaciisa iyo muuqiisa iyo waxa dhisaya brandku maaha kaliya sumada yar halka ku taala like Saab TV oo kale waa wariyaashooda waa maamulkooda waa lacagta saaw qaadaan waa saddex kala hadashaan waa programadiina waa dadkiinu say u dhaqmaan waxaas marka la isu wada geeyo waxa la brand associations markaasuu ama noqonaya TV-ga TV fiican ama noqonaya TV xun eekada laakiin magaciisu inuu qurux badan yahay ama muuqiisu inuu qurux badan kama dhigayso waxa kale runtii aad u muhiim ah dadka maartay ganacsiga Soomaalida iskaashiga aad u fiicneen qof walba gaarkiisa ayuu doonayay inuu ordo ma aragtaa tii maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay inuu qofku uu rafaadayo kaligii waxa kale aad u muhiim ah waxaanu nahay dad aad u extravagant yani musrifiin oo lacagta aad u daadaadiya ma aragtaa gaar ahaan dadka Soomaaliland ku nool oo kale xoog lacagta ma aragtay waxay ka mid yihiin Soomaalida marka dhulkooda la maro dadka ugu lacag sayrinta badan leh recovery-ka kale waxa laga yaabaa xogaa inay maaragtay ka dhaqaaleyn badan yihiin oo beesada iyo xogaa laga ilaaliyo marka maxaa loo baahan yahay qofku inta uu korayo inta uu noolaanayo waxa businesska ila gaadila in maaragtay la cuno oo lacag laga saaro marka business wuxuu baahan koro safe la sameeyo Soomaalida waxay oran jireen socodkana waa loo badiyaa saaxiibadana waa la yareeyaa marka dad maalin walba ama jaraayid akhri ama saaxiibo la sheekaysto dadka maaragtay waxaad arkaysaa qof marka in yar lacagtiisu yar gaadhay ayuu rabaa inuu xaaji oo deedana gaari weyn ka haysto oo guri weyn galo oo maqaaxida ka sheekeeyo oo dadku ay ixtiraamaan oo aan soo forth dunidana waxaad arkaysaa dee qof balaayiin ku shaqaysanayo laakiin qof caadi ah baabuurta dadka raacaya iska shaqaysanaya nimcada ilaahay yani taa uu leeyahay saacadaha iyo waxa ka hadlayo waama binicmati rabbika faxadith yani qofku markuu ilaahay wax siiyo wax qaaliya uu iibsan karaa wax qaaliya uu xidhan karaa laakiin maaha macnaheedu inuu markuu saacad roo laga saxiray uu is yiraahdo waxbay kugu dartay waa kalsooni darro yani inaad xidhan tahay macnaheedu maaha inaad tiraahdo qiimahaaga baa kor u kacay yani qofku waxa weeyaan qiimihiisu waa wuxuu yahay maaragta marka dadka qaarkood baa markay in yar soo gasho maaragtay kibra ama saas oo kale deetana waxaad arkaysaa isagoo marka dambe dhexda ka daloshay ganacsigu wuxuu baahan yahay la xajaalo ganacsigu wuxuu baahan yahay dad shaqeeya mushkiladaha dadka Soomaalida haysta waxa kamid ah shaqaalaha imika uu leeyahay maaragtay shaqaale wanaagsan ma haysan maaragta fikradna waan mararka qaarkood dhinaca waan ku waafaqsanahay dhinaca waan ku diidanahay waxbarashada niman badan oo entrepreneurs oo jaamacadaha ka hadlay marka dambe waxay dhiirigeliyaan in jaamacadaha laga yaaco laakiin waa wax la isku wadi karo aqoonta waanad baran kartaa sidoo kale ganacsiga waad samayn kartaa aqoontu ganacsiga kama hor istaagayso marka aqoonta baro master ka samee PhD ka samee laakiin yaanay kaa dhigin inaad ka fikirto uun inaad noqoto qof ku xidhan jeel ama maaragtay sidoo kale number 2 shaqaalinimadu ceeb maaha ilaahay baa quraankiisa ku yiri wajacala ba'dakum ba'dan sukhriya haddii la waayo cid u shaqaysa ganacsiga laftiisa ma shaqaynayo maaragta marka waxa loo baahan yahay waxna waa sunno ilaahiya in la isku dhamaystiro soo dadka qaarkood waa fulay kuma dhacaan inay inaad ganacsi gashaa dadku waxay ka eegaan qaybta wanaagsan ee lacag inaad helayso xorriyad helayso maxay laakiin dhinaca kale ee riskiska ay leedahay financial risk bad lacagtaadu dhanbaad waay kartaa waxay leedahay maaragtay career risk salaankaad ka dhici kartaa waxay leedahay family risk ama social risk waxa laga yaabaa caruurtaadii iyo family-gaagii inaad waqtiba u weydo
oo mararka qaarkood soo hoyan weydo oo dawakdo maaragta oo dabeedna reerkii iyo caruurtii ay kuwa garan waayaan ama ay ku nacaan eegada so maaha mar walba macaan yani inuu qofku ganacsi sameeya so dadku had iyo goor maaha in loogu tuso un maaragtay jannatullahi fi lard marka in qofku inuu ganacsi sameynayo rafaad badan bay leedahay culays badan bay leedahay laakiin reward bay leedahay abaalmarin bay leedahay xorriyad bay leedahay goortaa doonta inaad maaragtay shaqaysan karto dadka booqan karto fasax geli karto saas oo kale laakiin waad ka shaqo badan tahay waanad ka waqti buuxin badan tahay qofka maaragtay qofka Soomaaliga amaba ku nool Hargeysa oo kale marka uu doonayo hal abuur ganacsi inuu sameeyo maxaa looga baahan yahay in yar waa taabatay adigoo waliba dabaqayo buugan waxyaabaha uu ka hadlayo runtii qofka hal abuur ganacsi raba waxa ugu muhiimsan koow horta inuu fursad helo uu ka ganacsado fikirka markaad helayso qofku inuu wax baaro inuu magaalada dhex marmaro inuu wadanka hadduu ka bixi karo suurtagal tahay innovationka waxyaabaha hal abuurka dadka ku dhaliya businesska anigaba businessya aan bilaabay socodkaan adduunyada socday ayuun baan wax arkaa dabadeetana wixii baa kugu dhalanaya waxaad arkaysaa halkan inaanay ka jirin laakiin adduunyada kale ay wax caadiya ka tahay marka fikraddii markaad fikrad hesho qofkii haddana wuxuu u baahan yahay fikraddan uu doonayo inuu ka shaqeeyo buugga waxaa ku jirtay waa inuu xiisaynayo eeg haddaad ka shaqayso shay aanad xiisaynayn maaragta tusaalehaan anigu waxaan bilaabay chain of retailers baraka shopping centers la odhan jiray laba markaan marayay ayaan joojiyey because waxaan arkay timekayga inaan u ogolayn inaan siiyo cid maaragtay iga furata oo bahashii dhaqaajisana waan waayey waxaan arkay inaan gelayo maaragtay failer markaa waan ka retrieve garay waan ka baxay maaragta consultancyga waa waxaan jecelahay waa waxaan maaragtay yani naftayda siinayo anigoon lacag helayn baan samaynaya maaragta dabadeetana maxaa imanaysa guul baad ka gaadhaysaa maanta alxamdulilah keiska africa meel aanaan joogin ma jirto ganacsi noocu doono ha noqda ee sector aanaan wax ka caawin ma jirto hay-adaha dowladda maaragtay different areas soo egada maxaa keenaya haddaanad shaygan xiise iyo laabo haynin lacag kasta oo aad ka helayso raalli kuma noqonayso soomaalida rag qof lacag daadi soo gelayso oo wax kale un ku mashquulsan ama siyaasad ku mashquulsan ama qabaayil ku mashquulsan ama caaqil bay iska dhigay isagoo lacagtu daad saa ugu soo yaacayso eegada waxaanu ka shaqaynayo ayaanu happy ku ahayn aad bay muhiim u tahay qodobkaas oo kale qodobka kale waxa weeyaan lacagta yani finance siduu helay iminka ninkan mushkiladaas ma haysato laakiin innaga businesskeenna mushkiladaas waa haysataa aabbahaa si aad uga dhaadhicinayso inaad lacag ka qaado aad business ku geliso adeerka habaryarta saaxiibada maaragta inaad sheer ururiso dad ururiso yani waxyaabaha runtii aad soomaalida koonfurtu aad ay ugu fiicantay bay ka mid tahay isu tagga iyo ururka in 10 qof ay isu tagaan lacag yar isku ururiyaan business sameeyaan is aaminaan maaragta is-aaminaaddu way fiican tahay maaragta maalin baa waxay weydiiyey hablo ay igu yidhi rag way is aaminaan anagu maxaan isu aamini weyn waxaan ku rag way is dhaceen 100 jeeroo deedna imika asaariibtii la isku aaminay bay sameeyeen marka idinkuna isku darsada marka la is dhacee marka dambe caadi bay noqonaysaa waxay tegaysaa meel maaragtay saaxiga la isla keeno maaragta waay ha waxa kaloo aad muhiima inaad team hesho kula shaqeeya waay maaragta waxaa muhiima inaad meeshii location fiican meel ku habboon waa meesha ganacsiga laga furayo meesha ganacsiga laga furayo waay dadka aad ganacsiga ka dhex furaysaa waxaaga ma awoodayaan wixii maraykan laga iibinaya haddaad hargeysa la timaado waxaa laga yaabaa awooddii in dadkii dhaqaalaha hargeysa lafteeda daama kala leh waxaan u jeedaa xaafado danyaraa jira xaafado yar ladladan baa jira suuqyaa jira maaragta soo xaafado yaroo daafa ah oo laga yaaba in qaxoontiye lagu soo ururiyey haddaad ka furto meel shaaha $3 la siinayo way kugu adkaanaysaa inaad ka iibin karto laakiin haddii suuqa weyn iyo meelaha dadku isugu yimaadaan aad ka furto waxa laga yaabaa inay ku socoto marka waxay u baahan tahay locationka meesha aad ka furaysaa aad bay iyaduna muhiim u tahay waxaa kaloo aad u muhiima dacaayadda marketingka dhaqdhaqaajinta suuqgeynta iibka iyo xirfadda soo dhoweynta macaamiisha yacni wax badan oo u baahan in maaragtay waxaa kaloo aan runtii ka tegay oo qodobka koowaada business plan qorshe ganacsi waay iyo istaraatiijiyad qofku inuu samaysto haddii taa uu samaysan waayo wuu ambanayaa maaragta
deedna maalinba gidaar ayuu ka soo go-aya deetana marka dambe wuxuu arkayaa isaga oo waxaa la yidhahdaa maaragtay qofku markuu intuu istiraatijiyad samaysta ka leexdo bay dhahan stark in the middle meel dhexu fadhiistay bartanka markaaba wuxuu sarkayaa isagoon macal bartanka fadhiyin oo maaragtay badweyn ku jira marka aad baad umahadsantahay su-aalan jeclaan lahaa in labadiinaba inaad weydiiyo ayaa jirta buuggan af ingiriisi buu ku qoran yahay waxaana laga sheekeynayaa ingiriiska singapore iyo australia ganacsiya laga furay iyo adduunyada hore u martayba buuggani soomaalida ma u baahan yihiin in af soomaali loogu turjumo weliba iyadoo lagu salaynayo xaaladaha dhaqan dhaqaale ee deegaanada soomaalida iyo qofku waxa uu fahmi karo exactly aad bay runtii muhiim u tahay bugaagta cilmiga bugaagta khibradda ah sida kan oo kale in dadka loo turjumo marka la turjumayo waxay u baahan tahay in la deegaameeyo aqoonta oo tusaale ahaan waxyaabo iyaga xaggooda ka shaqaynayo asaaliib iyo farsamooyin ah oo aan halkan ka shaqaynahayn in loogu bedelo meelo halkan ka shaqaynaysa iyo waxyaabo maaragtay halkan ka shaqaynaya tusaalahaan teknolojiyadda isticmaalkeeda waxaa laga yaabaa halka imika iyaga ay ka marayso iyo inaga halkay maraysa inay aad u kala duwan tahay anoo runtii ku dhiiri gelinaya dadku inay teknolojiyadda isticmaalaan laakiin isagu siduu isticmaalayo iyo bisaylka inagu aynu maaragtay gaadhnay aad bay u kala duwan tahay marka mar walba in la turjumo laakiin la deegaameeyo la diimeeyo la dhaqameeyo oo 3 qodob oo aad u muhiim ah localkii sidoo kale dhaqankii iyo akhlaaqiyaadkii waxyaabo badan oo laga yaabo inay isaga caadi u tahay inaga caadi aanan ahayn waxyaabaha qaarkood laga yaabo dhalinyarada inay geliyaan fikir khaldan oo uu noqdo qofku inuu adduunyadaba cararaya iyada lafteeda in laga qaboojiyo oo adduunyadu qofku waa lagu khafiifaa maaragtay in laga qaboojiyo oo la yidhahdo war adduunyadu waxay u baahan tahay iimaan maaragta markaasaa inama alghina qina nafs qofku intuu hayo inuu ku kalsoonaado ayaa ka muhiimsan inuu wax badan helo aad iyo aad baad umahadsantahay runtii waa su-aal muhiima runtii dee dadka waynu aragnaa bugaag badan oo aan anfacayn oo inta badan loo turjumayo buuggani maadaama uu carinayo dadku inay halabuur ganacsi la yimaadaan anu waxaan jeclaan lahaa inta la turjumo welibana la badiyo in xarumaha aqoonta sare iyo kuwa sareba dugsiyada sare xataa in la geeyo waxaa laga yaabaa ilmihii dugsigii sare inuu dhameeyo isagoon awoodba u lahayn in uu sii wato aqoontiisa laakiin laga yaabo fikrado ganacsi inay ka dhex guuxayeen 2-3 maado haddii ay ugu jiri lahaayeen oo ka hadlaya halabuurka ganacsiga iyo ganacsidaad u abuuri lahayd waxaa laga yaaba waddankuba inuu tanaadi lahaa deetana wada small businesses iyo dad badan oo kambaniyo wada sameeyo kambaniyadoodii wada cirka mareen inay iman lahayd runtii cabdiraxmaan qodob aan ku waafaqsanahay waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo diinteena iyo dhaqankeena kasoo horjeeda in buuggan ay tusaalayaal u yihiin ama wararka iyo macluumaadka wado ay ku jiraan kuwaas in la deegaameeyo oo luqadeena saxdaana lagu qoro isla mar ahaantaasina loo turjumo siday inaga u shaqeynayso fikirkaasi waa muhiim fikradaha qaar waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in lagu hirgeliyo laakiin inta badan kuwa uu isagu sheegayo iyo waxyaabaha qodobada runtii udubdhexaadka waa qoraalkiisaba waxaad moodaa inay yihiin kuwa soomaalidana anfacaya cid kastoo dunida oo ka faa'iidaysatana anfacaya aad iyo aad baad umahadsan tihiin daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamij kooban oo aanu ku falanqeyneynay buug sanadkii 2018 soo baxay oo la yidhaahdo Entrepreneurial Revolution buuggaasi waxaa qoray nin la yidhaahdo Daniel Bresley waxaana falanqeynayay Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo ah maamulaha guud ee shirkadda Hasi Consultant iyo Axmed Suleymaan oo isaguna bartay dhaqaalaha isla markaasina la shaqeeya shirkada ganacsi oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo